markale kulan wacan daawadayaal guud ahaantiina waa meel walba ay joogtaan soo dhawaada tabinteena tooska ee barnaamijka hawraasna ayaanu gudagali doonaa waa si toosa uga daawanaysaan fogaan aragga RTN baahintayadu waxay idinka imaanaysaa ama aad kala socotaanba xarunta aan ku leenahay magaalada Nairobi soo dhawaada qodobadii iyo warbixinadii ayaanu gudagali doonaa waxaynu ku bilaabaynaa qodobkeena ugu horeeya ee tabinta maanta dhawaan danjiraha cusub ee Soomaaliya oo fadhin doona Washington waxaa waraaqadaha aqoonsiga nuqullo kamid ah ka gudoomay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka sidaad ogtihiin tan iyo markii ambassador Axmed Ciise Cawad wasiirka wasaaradda amuraha dibadda Soomaaliya loo magacaabay xilkaas waa ay banaaneed oo safiir rasmi ah ma jirin oo shaqadaas haya dhawaan ayaa loo magacaabay shakhsigan hadda se Trump ayaa ka gudoomay waraaqadaha dowladda federaalka Soomaaliya waxay soo dhaweynaysaa aqbalaadda waraaqadaha aqoonsiga ee madaxweynaha Mareykanka mudane Donald J Trump kaga gudoomay aqalka danjiraha cusub ee Soomaaliya ee Washington mudane Cali Shariif Axmed kaasoo loo igmad inuu sii dardargeliyo xiriirka saaxiibtinimo ee taariikhiga ah iskaashiga istiraatiijiyadeed iyo wax wada qabsiga ee faa'iidada u leh labada dal dowladda Soomaaliya iyo shacabkeeduba waxay dowladda Mareykanka u arkaan isbahaysi adag iyo saaxiib kaalin mug leh ka qaadanaya horumarka iyo horusocodnimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya danjiraha cusub ee Soomaaliya u fadhin doona Washington wuxuu hore u soo noqday danjiraha dalalka Faransiiska Ethiopia wuxuu sidoo kale ahaa wakiilka joogtada ah ee Soomaaliya u qaabilsan midowga Afrika iyo golaha dhaqaalaha qaramada midoobay ee Afrika dabcan UNECA la yiraahdo marka laga soo tago way aragnimadiisa dhanka dowladda danjire Axmed wuxuu soo noqday maamulo sare ganacsade ila taliye shirkado iyo hay'ado caalami ah danjiruhu wuxuu shahaadada labaad ka qaatay jaamacadda Sussex ee dalka Ingiriiska halka uu shahaadada koowaad uu ka qaatay jaamacadda London oo dabcan isla dalkaas isaga oo ku takhasusay culumta siyaasad ee dabcan dagaaleedka ama geopolitics waxa la yiraahdo istiraatiijiyadda iyo sidoo kale daraasaadka nabadda iyo khilaafaadka sida ay u kala horeeyaan dowladda Soomaaliya waxay ku kalsoon tahay in danjire Axmed uu gudan doono waajibaadkiisa shaqo sidii uu soo xoojin lahaa xiriirka taariikhiga ah ee labada dal iyo fursadaha casriga ah ee dabcan labada dhinac haatan ay ka wada faa'iideysan karaan Cabdiyo Trump oo ujeeda danjiraha Soomaaliya waraaqada ka gudoomay waan dhul cadeynaya ma horta hadii aad fiirisid xagga markii loo fiiriyo iskaashiga caalamiga dowladda Soomaaliya waxaad moodaa maaragtay maalinka ku xigo in ay ku soo noqonayso saaxadii caalamka aad iyo aad marka way horta sawir noocan oo maaragtay muddo dheer lama arkin kule anigu ma arkin oo qof oval office ka haysto ama madaxweyne ka ah Mareykanka oo saas u soo dhaweynayo safiir loo magacaabay marka qaar ma ogi horta inay banaan tahay laakiin waxaad moodaa wadamada kale waxa laga yaabaa xitaa foreign affairs ministerka inuu ka aqbalo waxyaalaha la yiraahdo credentialska ama aqoonsiga uu qofka la imaanayo dabcan way jirtay oo horey waxa looga gudoomay ambassador hore Soomaaliya xagga u fadhiya Cawad baa kamid ahaa Cumar Cabdirashiid baa kamid ahaa oo xilligii isha madaxweyne Obama uu joogay sida ogtaa Cabdiyo markii foreign policy laga hadlayo qofka danjiraha markii la soo magacaabo ama ambassadorka nuqul kamid ah wasaaradda arrimaha dibadda ayaa gudoonta dabcan qaybta kale hartayna waxa gudoonta State House-ka ama marka dabcan dhawaan waxa ka gudoomay nuqul kamid ah waraaqadiisa danjirinimo wasaaradda arrimaha dibadda ama Mareykanka dabcan haatan sida muuqata dawladdu way soo dhaweynaysaa iyadoo ay rumaysan tahay in Mareykanka uu yahay dabcan marka laga hadlayo xuduudda maanta ee reer galbeedka kuwa ugu muhiimsan ugu sareeya dhaqaale iyo sidoo kale awood kaleba marka ma isleedahay Soomaaliya fursado badan baa jira oo Mareykanka uga maqan oo ay uga faa'iideysan karto aad iyo horta hadii aad xisatid waxaan kugu yiri waxay u muuqataa maaragtay community of nations ama caalamka maaragtay wadamada caalamka adduunka ka jiro in hadartan sharaftii martabadii qiimihii Soomaaliyeed inay maaragtay si muuqanayso oo si ifayso dabcan taasna waxay ka turjumi doontaa wax alaale wixii fursado oo xagga maaragtay horumarka iskaashiga xagga dhinaca militariga hadii aad fiirisid ama teknolojiyada waxyaabo badan ayaa laga faa'iiday marka laga hadlayo foreign policy-ga dabcan
marka la qiimeynayo ama dabcan halbeeg laga soo qaadanayo ma waxaa lagu qiimeeyaa arrimaha gudaha ama nidaam systemka waddankaasi arrimihiisa gudaha in uu dabcan isha conflict ka jiro ama in isha political stability ay ka jirto marka foreign policy marka laga hadlayo outside-ka iyo in marka hore inside-ka la xalliyo tee habboon horta su-aal aad u fiican weeyaan laakiin waxaad ogaataa inta badan wadamada waxaa weeyaan arrimahooda gudaha ayaa waxaa muraayad u ah wax alaale wixii ay gudbin rabaan markii loo fiiriyo foreign policy-ga waa mahadsantahay cabdi soo dhawow bal adigu maxaa noo haysaa waa tahay wargeyska The Standard ayaa sheeka maaragtay cajiiba ku qoran oo ku saabsan kharashaadka ku baxo guriga madaxtooyada baarlamaanka markii loo fiiriyo siibatan safara maaragtay socdaalada dibadda markii la aadayo haddii aad fiirisid sanadda 2017 ilaa 18 madaxtooyada kaliya waxay isticmaashay 9 milyan dhibic 4 oo shilinka Kenya sanadka 2018 ilaa 19 hadda ku jirno 196 milyan markii la fiiriyo baarlamaanka isla sanadka 2017 ilaa 2018 waxay isticmaaleen 719 milyan 2018 ilaa 19 waxay noqotay 1 bilyan dhibic 6 marka waxaa jira wax la yiraahdo Parliamentary Service Commission ama guddiga adeega baarlamaanka ayaguna xubno ka tirsan oo maaragtay socdaal ku tagay wadamo kala duwan ayaa waxay isticmaaleen 596 milyan halka sanadka 2018 ilaa 19 waxayna isticmaaleen 695 milyan cidrus warbixintan ayaa waxay soo baxaysaa xilli maaragtay wargeyska sidoo dhigay oo madaxweynaha ku dhawaaqay in la yareeyo maaragtay budgetka maaragtay la xanibo oo maaragtay la dhowro xitaa mar buu ku dhawaaqay in la joojinayo mashaariicda horumarineed oo socdo marka markii laga reebo kuwa uu isaga u qonday oo loo yaqaano agenda oo maaragtay xagga wax soo saarka guryeynta jaban iyo wax la mid ah marka wargeyska ayaa calaamad su'aal fara badan ayuu saaraya maxaa sabab u ah in dawladda ay ku dhawaaqdo in maaragtay lacagta sida loo isticmaalayo in la yareeyo oo maaragtay la xakameeyo halka laakiin markii loo fiiriyo socdaalka maaragtay dibadda lagu tagaayo oo lacag fara badan ay ku baxayso cabdiyo markaa fiirisid jaantuska wargeyska iyo budgetka lacagta ee socdaalka ee 2018 lacag badan baa baxday aad iyo aad dabcan baarlamaanka oo ah hay-adda dabcan sharci ahaan la xisaabtanka iyo kontroolka iyo dabagalka oo haddana sharciga dejiso oo xerdejinta ah aad iyo aad baa lacagta iyadoo isticmaalayso marka ma isleedahay Kenya dabcan waxay wajahaysaa xaalad adag waxaan ognahay cabdiyo sidaa la socoto World Bank iyo hay-ado badan Kenya lacag badan baa lagu leeyahay oo deymo ah weli waa kasoo kaban la'da waa loo qaaraamaya marka sida muuqata hadiiba aysan hay-adihii isxakameyn karin oo aysan lahayn magaranaysaa wax jang oo la isticmaali karo isleedahay Kenya meel cidlaa bay joogtaa wargeyska waxaad moodaa wuxuu soo qaadanaa anshaxa baarlamaanka iyo xubnaha baarlamaanka iyo sida mas'uuliyadda ay iskaga saarayeen dhibaatooyinka dalka ka jiro example ahaan tusaale ahaan ayaa wargeyska wuxuu soo qaadanaya socdaalkii ugu dambeeyay Mareykanka la aaday xubno ka tirsan baarlamaanka 85 uu hoggaanka u hayay afhayeenka baarlamaanka ayaa lacag maaragtay aan maskaxda qaadan karin ayaa ku baxday marka cala kulli xaal waxa weeyaan ma dhihi kartid sidan aan sameeyno laakiin adiga sidii aad dadka maaragtay ugu baaqaysay in la sameeyo si ka duwan cabdiyow dabcan baarlamaanka waxaa la horgeeyaa budgetka ama miisaaniyad sanadeedka dawladda ay ku shaqaynayso marka waxaan la isticmaalay budgetka dawladda ee baarlamaanka la horgeeyay ee la baas gareeyay ama la meel mariyay ma kamid ahayn way kamid ahayn laakiin fiiri mootay budgetka markii baarlamaanka uu ansaxiyo
inta badan yani si guud ahaan unbaa waxaa leeyahay intan waxaan u qoondaynay maaragtay judiciaryga ama maxkamadeynta intan waxaan u qoondaynay baarlamaanka intan wasaar hebel ayaan siinay laakiin ma aha yani saan iyo saan iyo saan lacagta ha loo adeegsado marka dhibka waxaad moodaa inta badan halkaasuu ka dhasha sababta waxaa weeyaan بالمثل برلمانك أود وحوليه حبنا إنتاس أيان ربنا مشاس ومشاس إني تجان مركا لعج إنتاس أياكو بحسا مركا وحين قنيسة تريجريجا أما ميزان مالية وين ماركتي وين بحسا عادي marka laga hadlayo dabcan hadda sida xogta ay tilmaamayso inkastoo golayaasha dawladda dhan aysan ku wada jirin oo waxa ku jira state house-ka iyo baarlamaanka oo kaliya marka state house-ko kale soo malahan iyagu budget u go'an oo ay ku shaqeyn karaan oo ay isku celcelin karaan inta sanadka uu dhamaanayo inta loo qoondeeyay mise wuxuuda waxa weeyaan may horta may waxa weeyaan may xisaab meesha way jirtaa laazim waqti wax xisaab la'aan ku soconaya ma laha laakiin waxa weey xisaabtii ayaa meel ka dhac lagu sameynaya problem kale ka soo jira aad